caawo kale walaalkeen abwaanka qaaliga ah duruufaha nololeed ee bulshada dalka iyo waaqiceenna aynu ku jirnaba si fiican buu inoogu sawiray marka kelmad iyo laba qof dumar iyo qof nin uu yiraahdo ma ilaahayna caawo dhan malaha inuu waagu suukan bari ahaydo wayna xanxanteeyay runtii marka waxaan isleeyahay dadkii halkan ka hadlay oo dabkii Somaliland dhaliyay ay shideen professorka hadda halkan ka hadlayo ragga SNM asaasay London ku asaasay inaynu nabad ku wada joogno inaynu wax isweydiino inaynu si xor ah wada hadalno sabab ay ku lahaayeen laakiin 30 sano kadib haddana maxaa qaloocan iyo bartaynu marayna caaw haddana aynu ku heshin ma garanayno iyaduna waa wax cibro iyo cashar leh waxaan isleeyahay noloshu waa markay bilaabmayso siday ku bilaabmataa waa markuu roobku da'o goobahay biyuhu ka yimaadaan ee dooxyadu ay ku unkumaan buuraha ka mid ah buurahay biyuhu ka soo shururuxleeyaan kadibna togog ay maraan bay raadsadaan togogaasi waa nolosha iyo noocay dunida u saameynayso marka biyahaasi laba qaybood bay maraan qaybna way jiiraan oo waa dhulka jilicsan ee camuudu ku badan tahay qaybna dhagaxaan adag baa yaallo way diidaan inay maraan oo jihada biyuhu u socdaan ma hay jiha kale marsiiyaan marka waxaan isleeyahay bulshadu abwaab fara badan bay noloshu leedahay dadun baa albaabada noocan ee naarta qaraaci karaya oo dabka isku dhigi karaya oo badbaadada iyo danaha bulshada ka hadli karaya waxaan isleeyahay waa adeegayaal ummadeed dadkaas ama suugaan ha ku cabiraan aragtidooda ama siyaasad ha u galaan marka dadka xanjaarada adag ee diiday biyuhu inay bartan maraan ayna togan lahayn toga kala ay marayaan waa dadka nolosha micnaha u sameeya waa dadka taariikhda gala waa dadka iyagoo boqolaal sano qabriga ku jira qalbiyada dadka haddana dhex jiifa kuwaasay horseed u yihiin ninka weersame la yidhaha bartan ka hadlee tegay waa dadka mabaadi'diisu ay toosan tahay ee xujaarta adag ama dhagaxaanta adag ee diida in mabdi'iisa iyo aragtidiisa ay xukumo shan janno joogtaa ay ku shaqaysato marka dambana bannaanka lagaga tago kuwaasuna cabdiraxmaan abeesna uu ka mid yahay oo liiskaas dadka lagu jira waxaan isleeyahay dowladnimadeenna haddaan tusaale kooban idinka siiyo haddaydan idinka gasho public institutionska haddaydan idinka gasho private sector institutionska waxaad dareemaysaan kala duwanaanshaha iyo qiimahay kala leeyihiin halkaa minid baan ku soo ururaya hadday shirkad adeeg bixinaysa ama tu dhisma ha noqoto ama tu telefoon ha noqoto ama xitaa shirkadaha yar iminka decoration ka sameeya marka hore PR fiican bay leeyihiin advertisement bay sameynayaan dadkay soo jiidanayaan customerkay imanayaan way qancinayaan waxa jeebka ku jiray la hadhayaan yani saasay karaamo ku yeeshaan shirkaduhu oo adeegoodu saas human capital fiicanna way joogaan inbaa wasaaradaheenna bal tusaalaan idin siinayaa dalkeennu xalkuu socdaa saxalkeenu gaarayna nin wasiiraha wasaarad loo magacaabaya dadhay wasiirku wasaaradda u yimaado waa 30 sanaynu jirno wuxuu bedelayaa askarigiisa wuxuu ka dhiganayaa adeerkii wuxuu bedelayaa inantii xogeynta ahayd ee xogta dhan ee wasaaraddu ay ku socotay haysay inan kale in adeertiiba ka dhiganaya wuxuu haddana awood u leeyahay admin and finance-kii dhanaa qaybtii maaliyadda iyo wixii wasaaradda wadayba inuu haddana in adeerkii ka dhigto wuxuu haddana xitaa ka albaabka jooga uu ka dhigayaa ama ka dhirta wasaaradda waraabinaya in adeerkii sanadii barbukaasi wasaaradda joogayaayo si ay ku dhacdaba ninka madaxweynaha xilka ka qaadaya ku kala imanaya hintii hinlaag buu sameynaya ku kala imanaya hintii hinlaag buu sameynaya wasaarad bedini ka galaysaayo askariga markaad dhaaftay istiraado ayaa lagu qoranayaa waa askarigii wasiirkii hore imika halkan hore ayaa lagu soo wixiyay oo kan kalena muxuu ah waa wasiirkan cusub baa keensaday waxay soo noqonaysaa reception-ka fadhiso wasiirka waraaqo doono 3 hablood baa xogeyntii wasiirka oo inantan maxay ahayd oo xogeyntii wasiirka hore oo tan kale waa tii ka sii horeysa tan kale waa tii kale sii horeysa
kadibna la kabla kabay shaqaalihii dawladdu isku saareen wax allaaliya waxay qabanayaan ma jirto marka hab fikirkii dawladnimada ahayd intii uu sheegay walaalkay ee ahayd ilan dawladnimadu waa hooyo irmaan oo caanaheeda naaska ka soo baxaya laga cabo cadaalad sinaan caafimaad amni wadooyin waxbarasho horumar soddon sanaba ahayd maanta inaynu ka hadalno ay dhiin madan imika soo socotaa imise helikabtar oo calanka somalilan lulayabaa dul mari doono somalilan ay leedahay inaynu ka hadalnaba ahaydee in caawa laga hadlamay ahayn maxaa lagu xidhay maxaa loo soo daayay marka waxay noqotay hay-adihii dawladdu meesha la yidhaha wasiirkii inuu jiif caaqil noqdo de marka jiif caaqil hebel un baynu kala xishoonaynaaye wasaaradihii sidaasay nooga dumeen may lihii xisbiga waddaniga ka tirsanahay baa maxay tahay ballankan qaadaya may waxaan u baahannahay bulsho isku duuban oo awood leh oo baqagelisa ninkaanu madaxweynaha u wadno haddii kale intuu iska fadhiistuunbuu sida kuwii horeba sameeyeen uu samaynaya laakiin waa inaanu ku cabsi gelin karaynaa war bulsho baraarugsan oo caafimaad kaa rabta oo waddo kaa rabta oo cadaalad kaa rabta oo sinaan kaa rabta ayaa ku sugaysa oona kuu sacabatumay dareenkaasaynu doonnaa inaanu wada xambaarno waxaan isleeyahay haddii kelmad kooban aan ku ururiyo abwaanku wuxuu ka sheekay sidii loo xidhay anigu 10 cishaan madheero ku xidhnaa habeen madooba bartan layga qaaday weli kama sheekeen intaan ka soo baxay waxaan ugaba sheekeenayn waxaan mentality-ga taala ah waxa aanu marnay inaanu dadka u sheegno idinku aad boqotaan waxaan u aamusay waxaan uga sheekay waay marka si aan moral hazard ku dhicino niyadu ay idinka jabino aydan u quusan ismana lihiintiinan oo dhan baa waxaynaysa dhadhaarada biyaha leexinaya waa ashkhaas kooban oo ilaahay xulu ambiyadu sida ashkhaas u ahayd ayuunbaa badbaadiyaasha bulshaduna ashkhaas u noqda qof kastaba ma qaadi karaya mas-uuliyadaha noocan waa lagu haftaa laakiin dad baa xambaara ee idinka sidaa weersama sheegaya ha hadhino oo isaga iyo inta la aragtida ha ka hadhinay calanka cadaaladda Soomaaliland inaad xambaartaan baridoon marka waxaan ku gabagabeynayaa ninba ila xidhnaa oo xogeeyaha guudo isagoo ingiriisku ka yimid markii ugu horreysay la xidhaba markaan malaa 7 cisho waa bani ilaa xitaa taariikhdiina la xidhay waqtigii wixiiba waan iska baylaa markaan 7 cisho ku jirnay mid askari noo waxaa 3 barkii habeenimo ayaa maxkamadan Hargeysa la keenay waxaa na soo qaaday ciidamo aariyuya oo indhaha wada qufulan oo argagixisada loogu tala galay waa 12 gaari waa qabaalo meeshaasaanu ka soo baxaynaa kadibna maxaa dhacay mid askari ku niri suurinow ama wala disii deeniya ama meesha la yiraahdo maxkamadda la digeeniya marka mid kale ay leeyahay maxkamadda la digeeyo waxaan u maleynayaa waa rumaan markaas uu qadar oo rumaanku muxuu ahaa maasal tufaax baa ku xiga yaan waxaan uga socdaa aan doonayaa anigu haddaan wasiirka cadaaladda ah caawan idiin sheegaya kuwa garsoorayaasha ah iyo kuwa xeer ilaalinta ah waxaa ka mas-uuliyad darro xun kuwa looyarada ah bal qof looyara saddex qaybood ama 3 xirfadood baa nolosha aadamaha insaanka inta dunida la jooga badbaadin karay waa ninka siyaasiga ah oo qowlkiisa lagu kala baxayo dadka badbaadinaya iyo ninka dhakhtarka ah oo nafta dadka badbaadinaya iyo ninka looyarka skill-kan ha baran haddii aanad xamili karin inaad xaq wajahdo bal looyarkii kuu doodayay ee lacag kaa qaaday ee mabda'a iyo principalka iyo aqoonta sharci soo bartay ayaa dadhay garmaqalkaagii la dhageysanayo inta isagii lala hadlo loo hanjabaya ama lacag lagu duufsanaya marka waa waxa weeyaan wuxuu ka been sheegaya xirfadda rusqadan ka qaadi lahaa barta cadaaladda saxaysa ee xeer ilaalinta kaga ilmaysiinaysa ee garsoorayaasha dadka qabanaysa looyaradu way naga qalloodeen truly speaking for you ashkhaas iskuba wada daraya wanaagsani way jiraan oo xaq u dirada oo de Jamaal Mandela iyo Guule Dafac iyo rag badan baa bartan jooga marka waxaan doonayaa inaan ku gabagabeeyo hal minute hadduu igu daro ma garanayno sidii xoolihii baan 9 cisho meel ku jirnay maalintii doobnaadna inta la soo saaray baa la guriyiin kala taga waliba naloo diiday dadkayga inaanu kala aragno ilaa albaabada hoosta ka soo xidh way for maxaa u sameeyay
waxa la aliyo waxaan wali aan ka sameynay garan mayno waxba cajiibka maskaxdeeda ka bixi waxa kamid ah markii maxkamadda shantii iyo barkii subaxnimada la keenay bal maxkamadda shantii iyo barkii subaxnimo xeer ilaalintii iyo garsoorihii ay joogaan oo bilayskii ay joogaan oo annaga noo furan oo dalka oo dhan la xidhay balka war waa labadeeda qof maxaan sameyn karaa haddana 7 iyo barkii baan la celiyo aw barkhad leh oo labada gebi socda oo gaarigaanu ku jirnaa gaari qufulan yahay aan askarta ku nuur meesha aan ugu halaagina war badda wuxuu ku leeyahay amar baanu qabnaa amar baanu qabnaa war ma ahe naga daaya gawaadhidii baa ka wada istaagtay togu saasuu rogmanaya actually gawaadhi wanaagsan bay haystaan dirawala fiican bay haystaan niman masaakiina oo si wanaagsan askartu loola dhaqmayay baa haayeen oo la dhibayay maxaa dhacday dee biyihii buu saa ugu sii dhex daayay waa 4 qabaaloo naga horeeya iyo 4 qabaaloo naga dambeeya iyo gaadhi shabeeglaay oo saaran arbulay hadduu rogmada gaadhigu baldaaqadu sii baalkoo sii fura may meeshan waxaan cabdikariin axmed mooge la qaylinayo uu ka hadlayo waxaan ninkan dhibaya yani diga nin galay baa laga waraystaaye waa intaas anu asbatic baan ahay naqaska igu dhagayay 9 habeenimo qol la igeeyay saldhiga dhexe ku yaalo sabada oo gabigiisuba 3 meter square daaqad aan lahayn albaabkaas uu laga galayo koomaan galay markii 4 habeenimo hargeysa la naga qaaday waxaan ku waabariistay ma dheera anagoo joogna naqasku iga soo baxay xitaa dhakhtar leeyma geey waxaan sameeyay ma jir haday dawladnimo jirto ka janaka bilayska maxkamad la taagi lahaa yani waa right up xuquuqdeedii baa lagu tuntay laakiin waxaan ku gamaa in wali dareen wanaagsan jirade xamdi xuseen cigaal baa barta fadhido kelmadda ku qorta Facebook ay ka damqanaya xitaa way boqonayaan oo bartan ma iman karayaan kuwa wasiiradii oo ma oran karayaan war waxba naga khaldana waad nasaxdeena waad maasantiin no one can say mid yaga kamid in bartan ma iman karay oo dawladnimada ma difaaci karayo ma oran karayo because of dulmi baa la tirsanaya waxba jira ma waxay karayaan marka dad badan oo xaq u diray idima wada magacaabi karayo waa joogtaan Somaliland waa rajaan qabnaa way wanaagsanaanaysa intuu abwaankuna joogo cabdikariin joogo weersama joogo malaayiinkiina rag iyo dumar joogaan intiina kala joogtaan mana qoonsanayno waanu guuleysanaynaa laakiin waxaan u baahannahay shicib adag oo isku duuban oo mid ah wax allaaliyo wax ka dhaxeeya inanka juun degan iyo ka gacan libaax deganna ma jirto waa bilaa wado waa bilaa biyo waa bilaa iskuul waa bilaa nidaam iyagu bay tahay in la walaalayo dareen laga dhaxdhaliyo oo ka imanayaana aanu ka juun degan u warag adeerkiyo dalka qabsaday ka tagayaana ka gacan libaax joogaan u warag adeerkiyo dalka laga qaado waa inaanu abuurnaa dareen wadaniyadeed oo dalkan aynu ku yeelanayno waa inaanu abuurnaa shicib nimanka iman doona ay ka boqon doonaan imika haddaad noo sacbatuntaan ood kursigana saartaan oo maalintaa ay noogu kin dambayso de waa adhuun baa la iska odhan doonaa sanun baa soconaysa laakiin accountability-gu waa one of the master pillar